alxamdulillaah walaalahayga aad ayaan inkugu soo dhawaynayaa halkan waxaana rajaynayay maalin uun inaan inku arko Romania adinka oo u yimid dacwo darteed mar ayaan Turkiya ugu safray dalxiis goor habeen ah ayaan wadada ka lumay qof wadada marayay ayaan istaajiyay waxaana ku iri ma garanaysaa ciwaankan waxaan tusiyay brochure-ka hotelka wuxuuna igu yiri wax hotel kuma yaalaan xaafadan laakiinse waxaan rajaynayaa inaad aniga caawa marti ii noqoto waan israacnay gurigiisa ayaan aadnay habeenkuna mugdi ayuu ahaa waxba maanan arkaynin ilaa albaab horteyda ka furan gudaha ayaan u galnay waxaana ku arkay 5 caruur ah iyo 2 dumar ah oo da ah nafsadeyda ayaan iska iri meeshan waa meel aamina wuu inaga tagay aniga iyo xaaskayga gudaha ayaan galnay ninkii waa uu inoo yeeray si aan u qaadano casho fudud run ahaantii qaabka uu noola dhaqmay owgii waxaan dareennay raaxo iyo nasasho weyn wuxuuna inagu yiri halkan ayaad seexanaysaan annaguse meel kale ayaan seexanaynaa maalintii xigtay markii aan hurdada ka soo kacay waan raadiyay si aan ugu mahadceliyo safarkaygana aan u sii wato markii aan guriga ka soo baxay xilligu wuxuu ahaa maalin wax kastana waan arki karay waxaana ogaaday in daarta aan galnay ay ahayd hal qol oo kaliya waxayna ahayd guriga ninka aan martida u ahayn walaalka iyo 5 caruur ah iyo xaaskiisa iyo hooyadii waxay hurdayeen geed banaanka ah hoostiisa qabowguna aad ayuu u darnaa waan la yaabay waan u tagay waxaan ku iri war ma waalan tahay maxaad sidan u samaysay wuu isoo fiiriyay isagoo dhoola cadaynaya wuxuuna yiri maya anigu ma waalnay maxaa yeelay adinku waxaad tihiin 2 qof oo safar ah waxaana igu waajiba inaan wax kasta oo aan haayo aan idin siiyo maxaa yeelay waxaan ahay muslim markii uu walaalku yiri waxaan ahay muslim wuxuu igu wajahay iftiin sida dabka oo kala ah aad ayaan ula yaabanaa xaaskaygu inay ooydo ayay bilowday xaaskayga ayaan ku iri fiiri maxaad ka garanaysaa islaamka waad aragtay ninkan qaabka uu noola dhaqmayay wuxuu inagu yiri wax badan islaamka kama aan garanayo laakiinse akhriya kitaabka quraanka ah waxaana ku suurtagal inaad akhriso sunnada markaas islaamka wax badan ayaad ka ogaan doontaa si degdeg ah maktabada ayaan ku aaday musxaf ayaan iibsaday iyo qaar kamid ah kutubta xadiiska inaan akhriyo ayaana bilaabay waxaana akhrinayay ilaa 2 bilood ku dhawaad 2 bilood kadib ilaahay qalbigayga wuu furay waxaana iri ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah muslim ayaana noqday 17 January 1993 walxamdulillah qul hadhihi sabili ad'u ila allah ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين دهتني وودديدا حق waxaana ugu yeerayaa dadka xagga eebe anoo ku sugan xujo cad aniga iyo intay raacdaba waxaana nasahay eebe kamidna maahi mushrikiinta su'aashaada hadaan u imaado bilowgii noloshayda aniga oo noqday qof muslim ah waxaan bilaabay inaan dacwada faafiyo waxaan u safri jiray wax ka badan 112 dawlad aniga oo wada shicaarka islaamka wax ka badan 1000 qof ayaa muslimiin noqdeen markii aan arkay miraha si wanaagsan ee ka dhashay camalka waxaan go'aan ku qaatay wax uun inaan islaamka ugu sameeyo Romania haddana mandiqadeenan waxaa jooga wax ka badan 80,000 oo muslim waxaana go'aansaday inaan dhiso markas weyn oo islaami ah si uu u noqdo daar weyn oo ay dadku ku bartaan sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo quraanka mashruucaasi ayaan bilownay waxaana ku dhawaanay inaan dhameeyno wax yar ayaa nooga haray si aan u dhameeyno riyadaydu waxay tahay inaan camalkan ka dhigno mid ku faafsan daafaha caalamka hadafkayguna waxa weeye in dadka lagu hanuuniyo barashada islaamka maxaa yeelay qofkii hadduu akhriyo quraanka qalbigiisa oo furan waxa hubanti ah in ra'yigiisa islaamka ku saabsan uu isbedeli doono oo na raaci doono hadigii iyo wadadii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam riyadaydu waa midda inaan xaqiijiyo darteed ayaana u shaqaynayaa waxaana rajaynayaa marka aan dhameeyo dhisida markaskan islaamiga ah ee dacawiga ah ee ku yaal Romania amalkeenu inuu sii socon doono maxaa yeelay mas'uuliyad weyn ayaana saaran ilaahay wuxuuna siiyay nicmadii hanuunka iyo nicmada islaamka waxaana nagu waajiba inaan faafino nicmada